waqtigiisa dhan adduunka ku baabi'in oo camalkiisa aakhiro aan weynin qofna aan iska jiifin camalkiisa aakhiro aan weynin. Welcome. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada YouTube channelkeyga waa aniga walaashin Xafsa. Halka aad naga daawaneysana waa Xafsa channel. Alaa barnaamijkan waxay soo gudbisaa isla aniga ah Xafsa Sayid. Kusoo dhawaada asxaabta meel walba aad joogtaan. Insha Allah waxaa rabaa maanta inaan wax yar ka taataabto bisha barakeysan ee Ramadaan oo fooda nagu soo saaran oo wax yar nooga dhiman tahay soonka iyo axkaantiisa. Waa la soomaa marka la dhaho soonka wuxuu leeyahay axkaan iyo wado loo maro iyo jiha loo socdo iyo waxyaabo badan oo lagu amrayo ayaa jirto. wadadiisa hadaa aqaanin way kugu adkaanaysaa inaa ajarkiisa aad kasbato. waad soomaysaa laakiin waxaa yaraanaya inaa ajarkiisa kasbato. insha Allah 24 xalqo ayaan hayaa soonka iyo axkaantiisa ah. insha Allah soonka wax yar ayaa ka dhiman, inta aan ka gaarsiin karo ayaan nii soo gudbinayaa oo nii soo gaarsiinayaa. hadday noqoto labo qaybood inaan oo niigu soo gudbiyo hal qaybood wixii markaas macquul ah inta aan fursad u helay ayaan soo gudbin doonaa insha Allah. soo dhawaada meel kasta aad joogtiin, channelka waa channelkeeni. kusoo dhawaada meel walba aad joogtiin. soonkii axkaantiisa ayaa rabnaa inaan wax yar ka soonka wuxuu leeyahay axkaam fara badan, waxaana ka mid ah qaybtan u horeyso aan maanta soo jeedin doono insha Allah. Alla subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay u degdega dembi dhaafka Allah subxaanahu wa tacaala aad weydiiso iyo janno balaceedu dhan yahay cirka iyo dhulka, kuwaas oo loo diyaariyay dadka mutaqiinta ah. saasii uu Allah subxaanahu wa tacaala aayadda 133 suuratu Ali Cimraan ayuu ku sheegay hadalkaas. wuxuu dhahay wasaaricu ila almaqfirati min rabbikum wa jannatin carduha as-samaawaati wal ardu uciddat lilmuttaqiin. u degdega dembi dhaafka Allah subxaanahu wa tacaala aad weydiisanaysaan iyo janno balaceedu dhan yahay cirka iyo dhulka, taa oo loo diyaariyay dadka mutaqiinta ah. bisha Ramadaan ee soonka waxaa nagu waajibto in Allah subxaanahu wa tacaala aan dembi dhaaf weydiisano, janno balaceedu dhan yahay cirka iyo dhulka oo loo diyaariyay kuwa mutaqiinta. waxaanu ku sheegay aayadda 133 suuratu Ali Cimraan insha Allah. sidoo kale waxaa la dhahay Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay suuratu nisaa aayadda 110 Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa, wuxuu dhahay qofkii sameeyay xumaan ama dulmiyay naftiisa dabadeedna Allah subxaanahu wa tacaala uu weydiisto dembi dhaaf ayuu helayaa asigoo ah dembi dhaaf naxariista. waxaana ku sheegay aayadaas 110 suuratu nisaa. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa nooga sheegay waman yacmal su'an aw yadlim nafsahu oo dabadeed dembi dhaaf uu weydiisto dembi dhaaf ayuu helayaa. aayadda 110 suuratu nisaa ayaan kusoo sidoo kale waxaa nagu waajibto in Allah subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiisano aan soonka kusoo dhaweyno. dembi dhaaf inaan weydiisano Allah subxaanahu wa tacaala u toobad keeno mar walba inaan baryano ayaa soonka nagu waajib inaan kusoo dhaweyno. waxaa kaloo la haddii gabadha ay mar walba madbaxa ku jirto ay ku mashquulsan tahay madbaxa jikada hoosheeda ay ku mashquulsan tahay saacad walba ay meesha ku jirto ninkana iska jiifo, waxaa la dhahay ajarka soonka ayaa hoos u dhacayo. marka waxaa wanaagsan in la saacideeyo oo la iscaabiyo, aanu qof iska jiifin qofna aan waqtigiisa dhan adduunka ku baabi'in oo camalkiisa aakhiro aan weynin qofna aan iska jiifin camalkiisa aakhiro aan weynin kan adduunyana aan weynin. mar walba waxaa wanaagsan in la saacideeyo oo la iscaabiyo si fursad loo helo aan ku shaqeysano camalkeena aakhiro si aan ajarkeena aan hoos nooga dhicin. insha Allah maanta hordhacayno intaas suurada 133 suuratu Ali Cimraan wuxuu dhahay haloo degdega dembi dhaafka Allah subxaanahu wa tacaala aad weydiisanaysaan janno balaceedu dhan yahay cirka iyo dhulka inta u dhaxeyso. wasaaricu ila almaqfirati min rabbikum aayadaas ayaan kusoo qaadanay. aayadda 110 suuratu nisaa sidoo kale waxaa kusoo qaadanay waman yacmal su'an aw yadlim nafsahu qofkii sameeyay xumaan ama dulmiyay naftiisa
walba oo videogayga daawanaya waxaa ka codsanayaa inuu subscribe ii saaro like-tan ha ilaawin dhiirgelin ayay tahay insha Allah la wadaag asxaabtaada maxaa yeelay nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa aatee wuxuu dhahay wixii aad naftaada la jeceshahay la jeclaa walaalkaaga insha Allah wixii wanaagsan aan la jeclaano asxaabteena kale insha Allah soo aniga wallahi waqti badan ayaa gelinayaa insha Allah saan la wadaago waxa uu aniga nafteeda la jeclahay oo aan soo faa'iido inaan faa'iideeyo ayaan jeclahay insha Allah videogeena maanta muuqaalkeena cusub halkaas ayuu ku ag yahay insha Allah asxaabta loo share gareeyo si ay ugu faa'iideystaan mahadsanidin insha Allah daraasaadkeena waxaan bilaaban